halkan waxaana la joogo wiilkeena qaaliga ah iyo tiimkiisa Baariyow Cumar Baariyow oo ah hay'ad ka dhisan wadankan marar badan saad ogtihiin ba nagu soo noqnoqotay markii saddexaad mise afraad waa ay raashin noo keenayso haddana ballan naga qaaday inuu wiil kasta oo keenayo Cumar inay ciyaalkaanu noolaadaan waa u jeedaan buugaaga ku jiro qalmaana ku jiro carfisaa ku jiro uunsiya ku jiro cuuda ku jiro waxa ku jiro cabitaan caana ku jiro bariis sokor shaambada qubeyska buugaag qalmaan saliid macsaro kaloriinka dhulka lagu dhaqayo xataa waa uu keenay ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay khayr ha siiyo Cumar marar badan u mahad celinaynaa ma iloobi doono weligeena ilaahay khayr ha ku siiyo Cumar jazaakallahu khayr ciyaalkan mar Allah waad aragtay markaad soo galeysay ay u faraxsanaayeen ay u farxeen marka ilaahay waxaan ku baryaynaa wax ka farxiyo Allah ku siiyo ilaahayna ha ka farxiyo dib ilaahay kuma tuso waxaan kale u mahad celinaa maama Jawaahir iyo abaayaday Seynab iyadana caafimaad degdeg Allah siiyo ilaahay u baryaynaa Seynab waa dadkii ku dhaawacmay qarxii gudoomiyihii hore Allah u naxariistay Yariisow aliyadana caafimaad degdeg Allah siiyo walaashay Jawaahir Baarqab oo ah qofka maalinta xaruntan la furay ilaa haddana dhinac taagan iyadana ma iloobi karno walaalo Soomaaliyeed oo iyaguna sidoo kale aha jiraan laakiin Jawaahir qof bini aadan oo noolamida ma jirto rumahaanti waa qofta ka damqato waa qofta ka gubato waa qofta ay dhibka aragto Cumarna iyada laanteed ma imaan lahayn hadayna Jawaahir ahaa lahayn Cumar ma imaan lahayn waxna ma aanan heleen marka ilaahay khayr ha siiyo walaashay waa u mahad celinaynaa dhibaatana ma hayso dhaqaatiirta free ay noogu shaqeeyaan qof allaal qofkan wacana maanta aan dhahna canuga naga jirin isla markii istreeda way u geynaa marka waa idin mahad celinayaa waxaan ku soo dhaweynayaa Cumar Baariyow assalaamu alaykum salaanka dib ko hore waxaan mahad celinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay maanta ina caawino ilmahan agoonta oo qof haysan qof u joogin waxaan u talagalay ina ilmahan u garab istaago intii oo naf haysto intii dalka joogo intii noo ina ciyaalkan u garab istaagaan jeclay teeda kale walaalaheena oo qurbaa joogaan oo kasoo qayb galeen oo lacag soo direen kulligeena aad iyo aad mahadsantiin ilaahay khayr ajr xasanaad ha siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qof walba oo taageerta Cumar inaan dhaho waxa aad u soo dhiibtaan uu noo keenay wuxuuna keenay kuwa ugu mudan in loogu adeego marka Cumar Baariyow kaliya ma xaruntan wuxuu wax ka qabto degmooyin badan oo tagaa kuwa guri xataa u dhiseen noloshooda wax ka bedeleen qaar indhaha u fiiqaan agoomaha ciidsiiyaan masaakiinta afriyaan marka waxaan leeyahay intaasba wuxuu ku taagan yahay waa idinka waa dhalinyarada qurbaha joogta waliba oo iyo gabdho iyo wiilalba noocaad leedihiin iyo qof walba oo kamid ah oo raba inuu sadaqa la baxo jaariya waalidkiisa haduu dhintay waxa wanaagsan marka kuwaana ugu fiican waa agooman waa darbiye jiif waa kuwa nolosha maaragtay xaalad adag ku jiray waa kuwa waqtiga uu maaragtay zamanka marka fiirisid waqtiga qof uu saacidaa qofna dhibaato kala kulmaa kuwan waa kuwa waqtiga uu dhibaatada ay kala kulmeen hooyadoodii iyo aabayaashoodii oo laga yaabo xataa hooyada nool inayna garanayn ilmaheeda meel jiraan waxa ku kalifaayna waa duruufta hooyada saakay gurigeeda ka toosee maskaxiyan marka dadkan waxay u baahan yihiin in la dejiyo waxay u baahan yihiin maskaxda in waalidiintan lala sheekaysto ilmahan dhalay qaar waalid male cid dhashaba ma garanayaan waxaan rabnaa marka Soomaalinimo wax ka yar oo na deeqan ma jirto waxaana ummad Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay marka mas'uuliyadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu waajibay gaar ahaan haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir annaga waxaa waajib naga ah nagu ah waliba oo na saaran qof walba oo magaaladan ku nool ee dhibaataysan degmo jooga ama waaxu jooga ama laanu jooga waxaana mas'uul ka ah qof waxa laga yaabaa degmadaada inay joogaan kuwa badan oo noocaan oo kala ah oo aadan war u haynin waxaan rabnaa qof walba oo mas'uul ah dhammaan gudoomiyaasha 17 degmo waliba aan ka codsanahay si gaar ah in hoos wax loo fiiriyo in laga warqabo
guryaha aan dabka laga shidanaynin in laga warqabo dad badan oo dhibaato qaba jiro oo dad kale ay dhibaataynayaan laakiin aan awoodin inay hadlaan bulshada haddii la dhex galo xog badan la helayaa waxaa nasiib daraa marka in gabdho yaryar ay meeshan joogaan hadda oo wadada laga soo qabtay waalidiintii miyaan ilmahan dhalin oo aysan ahayn hooyo ama aabe ma waynan ahayn walaal sidee gabar yar oo dhowr iyo 10 sano jirto ama 8 ama 9 jirto ama wiil yar adigu aad dhashay wadada uu u jooga ama kool u dhuuqa waxa kale nasiib darro ah hooyo Soomaaliyeed inay gaari dameer intay qashinka dad ka soo qaado dukaaman ay u soo dhiibto ilmo yar yar ayadoo rabtay inay ilmaheeda ku biisho oo rabto inay ilmaheeda mustaqbal u raadiso laakiin ay caruurta islaameed ay u soo dhiibayso ilma ka goday ilaa degmada Cabdicasiis iyo Kaaraan ilaahan kugu dhaariyay ilmaha yar yar ee dameerka loogu soo dhiibay wax aqliga qaadanaya ma aha marka waxaan aaminsanahay hooyadaas meel ay fadhidaa waxay aaminsantahay inay shaqaysanayso laakiin waxaan rabnaa inaan dhaw ma shaqaysanaysid waxaad samaynaysaa abuse oo aad rabto ilmaheeda umayna dhiibinin ayadu maysa soo wadinin muddo sanada ayaan u shaqaynaynay dheen waxay rabtaa inay dacwooto tiraado dameera layga qabsado dameer ay raadinaysaa qof dhan ay noloshiisa ay baabi'inay marka qofka noocaas oo kala ah waxa la rabaa dadka in la xisaabtamo marka degma qashin looga soo qaadaya waa nasiib darro waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed qashinka kambaniyaala loogu talagalay dad ayaa qaadaya waxa la rabaa in la maareeyo oo qofka uu la xiriiro degmadiisa laakiin qof walba duurada anaa ka soo qaadaya lacag ka raadsanayo ilmaha yar ee masaakiinta mid yar joog aa wiilashiisa shal keen kaale aw kii kale kaale ilmahan dameer ay wadeen wax aqliga qaadanay ma ta aawe daankiisa u jeedaan dameerka dilay halka soo istaag sande waad u jeedaan daankiisa dameerka haraatiyay hooya dhashay aabba dhalay waxa looga faa'iideysanaa duruufta marka in anigu kuwayga istirtu hurdaan kuwana aan dameer uga soo dhiiba ka goday ay leedahay waxa la iga qabsada dameer iyo ilmahan hooyay aabba dhalay على الأقل نولل كلا وما يسمينين أوجدوا ده حتى مقرحونا أرجود ما فينا سداي قربتها مركا الماء ابن حلال يعني يقول الشو سداي قربتها الماء ده بريتنا أنفعنا يدا الماء ده وحسينا صوني النار مركا وحنا نصيب درقة دمرك الصوماليات والربي إن يقاركود أي دريمان هو النمضة وهم حي هويو والرحمة دي جرجة هويو ونحرستي أدونك هويو وفيجر كلا يسكت عفو لكن وحنا نصيب درقة وين كقاركود إن يكون دقر قبياش وأديجان أي هو بكون ديبان كون المهن علقة يجوا عباية دميرد السود ديبان تاسن الدمر كيكسر نقنة أنا جاي نقص لابني وحوجد ديجينا مركا إن أنا ديب أقول نقنين وحلاقاتي إن يجوري جد هرتي سيان يكون جوا بيسط وحلاقاتي إن يجوري تكتي يدور نار صار نقضه كاسة وغير بدن والله كاسة وغير بدن أنت يكون أنا كلا لوقايو قار دمر له السود ديبلا وحربا قدام بنتي عمر ومهتسنتين عنده ماما آذن كاجم هاد علنايا dareenkaaga wanaagsan Soomaalinimada leh waxtarka leh waxaan rabaa dhalinyarada kalena inaan dhaho ku daydo Cumar Baariyo oo kale kuwa badan oo magaalada fadhiyo Facebook-yada soo dhigayo waqtigooda ayagoo wax bartay jaamacada ka baxay ayay waxay rabaan hadii shaqo male wadanka shaqo taalo shaqo abuur samayso fikir la imow haddaadan awoodin wax kale xataa على الأقل ku soo biir teamka Cumar Baariyo waan leeyahay oo ummadda u adeego kuwaana mustaqbal u baahan kuwaan u adeega waa agooman waa masaakiin wadankeena ayaa waxa la rabaa oo la leeyahay dawladdu ha istaagto Soomaaliya ha degto magaalada nabad ha noqoto maxay nabad ku noqonay magaalada ma noqon karto because magaalada ayada isgumaysanayso magaalada waxa ku nool kuwa nalaynaya dhagar qabayaasha kuwa ka dulli badan oo ka xun ayaa jooga maxay ku dhacday gabar yar oo 8 sano jirto oo koolo dhuuqayso wadada taagan war wax la arkay ma ah wax la maqlayna ma marka waalidiinta Soomaaliyeed waxa ugu baaqaynaa iyo madaxda dawladaba in la helo xarumo laga dhiso maamulka gobolka Banaadir annaga hadaan maalin walba waan u taaganahay waxaan rajaynayaa xarumo badan oo sida hadda xarunta warta nabadda oo gudoomiye Zainab ay focus gareynayso rajadeedana ay tahay in ay soo kordhiso xarun standard ah oo ay ku noolaadaan ilmaha sidan oo kala ah iyo kuwa yar yar oo ayagana la soo tuuro xaruntaas waa la dhisay way ku guuleysatay ilaahayna waxaan ka baryayaa ayadoo shaqaynayso inaan aragno xarumo badan ku yaala xarunta agoonta waa aragteen gabdhaha Boondheere xaruntan hadda aad u jeedaan ka dare ilaa 5 sano 6 sano ayaa ilmahan la hayaa ilmahan ay ku tiirsan yihiin waa su'aasha marka yaa u maqan oo la sugaa waay qof walba muwaadin oo adigu ku sugayaa qof walba waxaysto adigu ku sugayaa ganacsatada waxgaradka dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed culamaa u diinka Soomaaliyeedna diinta waxay ka qabto waxa la rabaa in laga hadlo kuwana koolo dhuuqaaya ee la rabo in shaqo
loo soo diray waa shaqaynaya muxuu ku shaqaynaa kooladii dhuuqa afku ku sitaa dameerkana wuu hogaaminaa wuu wadaa waxaan rabnaa kuwan oo kale markii la arko noo keena waa la xareynayaa waalidka dhalay berito sharci iyo carruurta sharci ay leeyihiin oo dalka loo baasgareeyay waxaan rabnaa sharcigaasna inuu shaqeeyo maxay ka qabtaa sharciga muxuu ka qabaa in ilmahan oo kale muddo sanada qofka ku shaqaynayay xaquuqdooda keen hadii la dhaho iska dhaaf in lagu xiro oo maxkamad la taagay xaq u leeyihiin